wararka ka imaanaya magaalada Baardheere ee gobolka Gada ayaa sheegayay in ciidanka booliska degmadaasi ay toogteen haweeney la sheegay in isku qarxin rabtay saldhigga degmadaasi. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in haweeneyda uu ka baxday Baydhabo ay bam gacmeed ku tuurtay ciidanka ilaalada saldhigga, halkaasna ku dhaawacmeen 2 askari. goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay rasaas ku fureen haweeneyda, waxaana la sheegay in goobta ay ku geeriyootay. boolisku waxay sheegeen in haweeneyda ay ka degtay gaari caasi ah oo ka baxay Baydhabo isla markaana gaaray magaalada Baardheere ee gobolka Gado. taliyaha ciidamada militariga degmada Baardheere Ali Maxamed Xasan oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxa uu sheegay in haweeneydan ay dileen ciidamada booliska Baardheere ay ku hubeysneed ulaha qarxa iyo bambooyin. ilaalada saldhigga Baardheere ayuu sheegay in haweeneydan ay ku amreen inay istaagto, balse ka dhaga adeegtay bam gacmeedna ay ku tuurtay askarta. intaa kadibna ciidamada ay la dhiceen rasaas, sidaasna ay ku geeriyootay. taliyaha oo sii hadlayay ayaa sheegay in ciidamada Amison qaybtooda Itoobiya ay walxaha qarxa ee ku xirnaa haweeneyda ay fureen, iyagana ay qaateen. saaka waxa dhacday foolxun oo ay isticmaalayeen argagixisada xoogga mataqaana Soomaali ku baahsan dhiigcadayaalka dadka Soomaaliyeed dhiigooda banaystay. naagda waxaa lagu soo xiray qarax iyo bambooyin loo soo dhiibay oo badankood markay gacanta ka tuurtina intaysan ka tuurin ka hore ay wardiyaha joojiyeen, kadibna gomay soo tuurtay, ayadana waa la dilay. ma garat waa laga helay waxa ayaga qaraxan waa laga helay, bomna way tuurtay, askar bay dhaafaan. hadda dhaawacan wadaan kula hadlay maya markii la dilay way kala fogaayeen dilooyinkii way kala fogaayeen. marka qaraxi asagaan waa ka badbaadnay. qaraxi waa laga furay wax qof oo aadan oo wax ku noqdo leh. 2 askari ku dhaawacantay dhaawacooda waa ilaahay mahadiisa. meesha bulshada way joogtay. qaraxa dhacay waxa weeye bama ayada tuurtay, dadka dhan baa arkayay. qaraxna waa laga furo, qarax laga furino gacanta lagu hayaa. suunka isku qarxiyaan ururka al-shabaab ay isku qarxiyaan. qaraxa waxa furay miinaystayaal ama Soomaah ayagana qaaday in la sawir ma dhicin. calaamada madaxeeda ku xirneeda cadeynaysa oo la sawiray maayo taas cadeynaysa. waxa weeye qaraxa taas cadeynaysa. aad baa ma san hadana dhaawac baan wadaa inaan duubaan rabay.